waa mowduuc maqalkiisa inta badan ee dadku jecel yihiin waa mowduuc markii aan maqashaan qof walba uu su'aal iska weydiinayo maxaa salaadahay mowduuc maanta barnaamijka uga hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh meel walba iga daawanaysaan ku soo dhawaada YouTube channelka Aamino Macalin موضوع ما أنت أو هاللينا وحوياه موضوع آدي حساس وموضوع حيسيه سوته وموضوع مقل كيسة أنت بدن إدتك جعليهن وموضوع مركي مقشان قفل بقى سؤال إسكويدينا محاسل هذا موضوع ما أنت برنامج كأو هاللينا هرتو حنكهلنا وحل له إرج جعل erayga la dhaho jacayl inta badan naguma cusbo markii aan maqalno jacayl marka yareed ilaa iyo hadda waxa maqlaysa jacayl laba qof oo isjacayl wiili gabar isjacayl waxa la yaani jacayl hadii aan maqashid jacayl waay jacaylka muxuu tahay marka waa rabitaan wax adiga aad rabtid waay waa baahi qofka ka maqan laakiin markii ay joogto qof bini aadana waa wax aad jeclaatay aad caashaqaday nafsiyan aad uga heshay gabayo iyo suugaan iyo heeso iyo buraanbur intaba waa laga tiriyay yaani waxa ku cadaanaysa in uu yahay jaceelku shay jiro dood taagan ayaa waxay tahay jaceelka ma jira mise ma jiro jaceelku maxay tahay waxay tahay waa qof aad jeclaatay ama ku jeclaaday waxa ku soo xigsanayso horta jaceel ma jira mise ma jiro hadii abwaaniintii hore u raacna waxay dhaheen moogiye jaceel waa baxay isla abwaankii dib ugu jawaabo wuxuu yiri waa macaan ama waa qaraar hadba waa sidoo kugu soo maray exactly jawaabta saxda waa kaas moojiye jacayl waa maxay waa su'aal jawaabta meel dhar ma jirto qaybta labaad le waay waa macaan ama waa qaraar hadba waa sidoo kugu soo maray markaasuu si dhameystir wuxuu yiri waa magaca cudur yaani hadii la waayo oo jacaylki qofkii wixii uu jeclaaday hadii la waayo cudur uu noqonaa موضوعas mar kale ayaan falanqeyn doonaa insha Allah jaceelku jira ma keenaa jaceelka dhibaato ma keenaa yaani hadii la dhaho jaceel waa la galaya bad oo la dabaalanaya amal weeyaan waa mowjado waxay dhahan waa dilaa jaceelku waa xaasid waa manaxe aan naxariis lahayn waa maxay dadka qaar waxay dhahan waa naxariis waa kalgacayl dadka qaar waxay dhahan yaani waxa waa qof nolosha waxay u baahanad nafta nolosheedii oo kaleeto hadii aan dhahano hadii la dhaho jaceelka la faaqidaya tank baa dhamaanay daawadayaan marka had qof bu fikirkiisa uu kaaga hadlaya laakiin bal waxaan ka hadlaynaa maxay tahay jaceel teena ma kala joogo jaceelka waa doorasho ama rabitaan aad rabootay qof kaleeto oo dhigaaga ah tusaale ahaan qof aad aragtay waad ka heshay kadib waad jeclaatay ogsoono ka helitaanka iyo jaceelka laba kala tahay qofkaas adiga aad jeclaatay maxaa u jeclaatay taqaanaa ma sheegi kartaa adiga hadda daawana isweydii maxaa u jeclaatay qofkan ma laga yaabo qofkan qaabka uu hadlaayo isteelka wiilkaas ina jeclaatay ma laga yaabo ama gabadhaas isteelkeeda qaabka labiska oo labisan tahay qaabka uu hadlayso markay soconayso qaabka gabadhaas u soconayso jag hadba laafiyaha yaa waxyaabo badan dhalinyarada sheegan ma laga yaabaa siijeedka wiilkaas ina ka heshay yaa salaam hebel markuu sii jeedo uu kala kacsan yahay murqiista waa wiilkaas six pack oo leeyahay markuu soo jeedo yaa abatiga u xiran waxa jira erayo badan oo lagu soo kordhiyay af Soomaaliga oo dhalinyarada ku soo kordhiyeen waagoor waxa la jira wiilkaas uu caynsan yahay يعني dhaxdu ka caynsan yahay waxa la dhaxda u xiran laakiin had maxaa la wiilkan six bag uu leeyahay
يعني سيكس باك waxaa laga wadaa 6 murqood yani calooshiis ku jirto oo calool weyn oo haana ma laho caato xun oo kala ku kuusan ma ahan oo asaga dhan yani waa wiil asaga dhan diyaarsan physically yani muuqaal ahaan markii qofkan la arko waa qof diyaarsan yani jirkiisa jimicsi uu sameeyay amal qofkaas ee isteelkiisa oo isku habaysan yahay waa qof naftiisa hagaajiyay oo ka fakaray in soo jiidasho uu yeesho in uu gabdhaha qanciyo in uu noqdo wiil laga helo waa wiil ku dadaalay yani caalamiinta galay cuntadiisa kontaroolay asaga kaliya isku mashquulsan markaas markii la arko isagoo funaanad madow iyo intuu shaati isku soo xirtay wiilkaas oo kale ama funaanad madow iyo surwaal oo soo xiranaya murqihii garbaha halkaana ka soo kala kuusmaan jag tinta wala soo shalasana waagi hore wiilasha timaha waa la seexin jiray dharrak halkaas la geyn jiray timaha saliida la marin jiray waa la jiifin jiray waxa la jiray tima bis فرد ملاست حياسس عمله لكن هذا نقشده كله وحوا اسكيما كل عصر والبو عينكيسو وتا marka qamiisto kale ama jimcaha kale wiil qamiis soo gashtay oo qamiiskii jirkiisa isla eegyihiin oo kale wiil imaamad garabka kaalis kargiya salaam u saaran tahay ya marka qofkaas shakliga uu u labisan yahay iyo qaabka uu u socdo aad ka heshay ayaad jeclaatay taas ayaa waxa la jecel jaceelku maxaa loo aqoonsan karaa marka ina qofkan jeclaatay dadka jaceelka faahfaahiyay waxay dhahaan jaceelka runta ah waxa waaye awala marka ugu horeysa aad aragtid waay aragtida ugu horeysa qofkan aad aragtid waad ka helaysaa say ugu helaysaa xoogaa waxba la dareemaa dadka jaceelka taxliilay waxay dhahaan waxa la dareemaa wax yar oo naxdina shaq halka buga maartay yaa wax yar oo naxdin aan ka dareemaysaa taas ay xal laha jaceel waxa kala dhigi karnaa walwal uu leeyahay jaceelka yani waxa kula soo gudboonaanaysa xaalado kale يعني قفكي aad jecleed ayaad ka fakaraysaa walwalka ma aha yani problem ama dib inuu ku soo kordhayo oo fahmin yani waxa ka fakaraysaa hebel saaq ma soo wacay horta iblaas saaq ma soo wacay telefoonka fiirin ma ku reebta xal ma ku dambaysa whatsapp wax ma ku soo qortay jaceelka runta ah qofki adi aad jeceshaa ma ku fariin ku soo diro oo aad telefoonka furtid waaw فرحت كاغا دنبيسه ما جرتو رياليتي كان كهادلينا ما كهادلينا يعني waxyaabo ma dhoobeen waxba isku ma qarqarinayna sida saxda aan uga hadleynaa wad farxaysan marka aragtido kale taas ayaa waxa la jecel Allah waxa laga yaabaa qofka aad jeceshahay gabadha aad jeceshahay markay ku timaado hadalka kugu dhageeyo waxa laga yaabaa hadaa ina message ka booteynaysa laga yaabaa dhag waxa laga yaabaa halkii daqiiqo 10 fariin inaad dirtida laga yaabaa oo jag jawaabta xataa inta ku soo qorinbo ina yani clever ah ku tahay xariif ina ku tahay fariin qoraalka laakiin markay ka face imaado hadalka kugu dhageeyo dhidid ka imaana oo waaweyn يعني لا قفك جعش مك فلس ما هل كرتي جعلك رنت أباي كما هلينو جعلك قيالي شحات يحصل أو تلاقي إن لجوفولي كاس جعل معهن جعلك رنت عم كهلينو قفك جعش الريالتي وجعش مركو كسوعك فلست بتاتم وحدا لا أو كاس وبحي هبيرات مجرتو علامة على قدر ما لذي توين وجيجي مرات شح كاسو بحا يا تاس الله جعل يا فانت سمع تاس ايا حلا جعلك رنت كاس الله وعلى فرها وكل انك ديدid gamcaha iyo oo kale inaka didid oo kale qofka jacashan waa shab laakiin marka guriga joogtid kaliya fadhisid qolka fadhiga boota markaas message ka saarta u dir ka taag ha waa ku jeclaa kan laakiin adan afka ka dhihin sababta taqaana jaceelka runta ah sida loo soo bixiyo ma fududo qof aad jeceshaa inta soo hor fariisatid waa ku jeclahay that's not possible kaas waxa jaceelka oo waxa waaye oo shaatiga kala gashan waaye oo rabo dana qaas inuu kugu fuliyo laakiin qofka runta ku jecel oo reality ku jecel saas ma sameyn karo Soomaalidu maxay ku mahmaadaan taqaana indha isjecel isma eegi karaan indha caashiq maxaa la isma eegi karaan qofka sida runta ku jecel markuu ku soo har fariisto oo hortaada uu soo fariisto oo si dareen ku jiro qofkaas uu ku fiiriyo xaqiiqan wala qofkaas kuma eegi karo
qof laakiin adaarta indhaha kugu gubaya in deero la tahay indhaha way qurux badan yihiin in kuula marsanta soo ku arkay kuushaada wuu ku fiiriyay si fiican oo ku fiiriyay qofkaas jecel run ah ku jecelo wax la ku jiro jecelkiisa laakiin fi shay wax kala taajiro ya jecelka runta qofka ku jecel indhaha ma ku dhameystir karo hamar hadii waxa laga yaabaa halkii daqiiqo 2 second oo kamid haduu isha dhac kugu sii in ka sii jeesto waa laga yaabaa inaad ku qabatid asagoo ku eegaya adiga laftirkaaga qofka sida saxda ah u jeceshaa ma eegi kartid marka jecelka sidoo yahay iyo sidee tahan fiirnayna sidoo yahay waa aragnay qofka jeceshaa ma eegi kartid hadal oo buyuur ah kula ma hadli kartid kama ahaan kartid waad ku walwalaysaa waad ka farxaysaa fariimihiisa markaad aragto taleefanka ka sii daran marka sida jecelka laga dhigta marka shukaansiga maanta ee dhalinyarada ka dhaxeeyo waxaan dhigi karnaa shaxaad miyam shukaansi waa hortaasi ya waxa la iskaga tashanaya qofka inuu ku casho ku keeno inuu berber taleefanka uu soo shubo inuu yaani maxaa dhaysaa ii sheeg maxaa dhaysaa kaarka internetka kugu shubo inuu hadiyad ku keeno maayinis la u taagantaa baad jecel buu meesh muu u taagnaa maayinis yaani qofkan inuu wax kugu soo kordhiyo la ku xisaabtamaysa hadaa aragtid qof ku xisaabtamay in uu wax kugu soo kordhiyo in aad wax ku kordhisaan oo tusaale ahaan wiil haduu yahay ama gabar aad oo kugu fakaraay muu hadiyad ku keeno maxaa qofkan iska socdaaba soo kaligiis oo iimaade a'uudu billahi min shaytaani rajiim aday qofkan dadnimadiisa miyaad rabtay inaad baratid iyo dabeecadiisa iyo kaljarkiisa masajabkiisa caadi horta aweerar ku taa waa su'aasha wiil waxa jir dhaaya way shaqeystaa gabadhan ya hadiyad dhan iyo ma keenayso waay qasab miyaan hadiyad lagu keeno maahan qasab marka jecelka sida laga dhigay waxa waay taas jecel ma aan magaciisa dhinac kale loo rogay weeyaan marka hadii aad ahano mowduuca jecelka waa ka hadleynaa yaani hal mowduuc oo kaliya laguma soo koobi karo marka mowduuceena maanta intaas ayaa ku soo gabagabeynayna oo uga hadleynay waa maxay jecel marka insha Allah wallan ha iloobin like share comment wixii fikrada ah qaybta commentiga ku balansan hadii ilaa yiraahdo hadii mowduucan aad ka heshay ee nala soo wadaag insha Allah maxaa adiga jeclaan lahayd in aan ka soo hadalno qaybaha jecelka hadii aad dareemaysid problem jecelka hadii aad u baahan tahay